kadib markii ay soo baxday natiijada oo uu soo bandhigay golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya natiijada doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya laguna dhawaaqay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba waxaa si isu mid ah isugu bedelay dareenka guud ee shacbiyadda Soomaaliyeed magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa ka dhacay rasaasyo goosgoos ah kuwaasi oo markii dambaba isugu bedelay kuwa sidii roobka oo kale loogu rido magaalada Jowhar dibadbaxayaal ayaa soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada kuwaasi oo taageerayo in madaxweynaha jamhuuriyadda uu noqdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo inta badanba bulshadu ay ka dhowr sugayeen Soomaaliya Farmaajo loo doortay hambalyo waliga noo ku jeclan hadda noo ku jecelnaa soo dhawow madaxweynaha dalka Soomaaliya waxaan ugu soo dadka waxaan magacaygu waa Cabdiqaadir Xuseen Camay waxaan joogaa magaalada Jowhar waxaan aad ugu faraxsanahay in la doorto madaxweynaha Soomaaliya oo noqdo GFC mudane Cabdullaahi Farmaajo dadka reer Jowhar waxay aad ugu farxayaan madaxweynaha la doortay mudane Cabdullaahi Farmaajo oo ah nin wax qabadkiisa la tijaabiyay muddo 6 bilood ah maanta dadka Soomaaliyeed guuxa ka yara waxay tahay nin wax qaban kara dadkii danta u baahan oo wax u qaban kara inuu mudane Cabdullaahi Farmaajo dibadbaxani ay isu soo baxeen bulshada oo isla markaana ay ku taageerayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu noqdo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa noqday dibadbixii ugu weynaa ee suurtageliyay in gabi ahaanba qayb ka mid ah ganacsiga oo qaadka uu horeeyo waa xalay mid lacag la'aan ah bulshada loogu dul fardhinayay Cabdifataax Axmed Maclow Cabdifataax Zaki telefishinka caalamiga ee Bulsho